anaysa dhibka jiraan halahaasi haddii hadda Luna guba la dhaho haddana stable coin-ka bilaabayo wax si qaab darnay marka hore u dhiseen marka inay arrintaas xaliyaan oo labada coin wax yar agruusankiisa ay kala bixiyaan si mid loo gubi karo way isku dayayaan laakiin ay qascad kuma badinayaan Luna habriya hadda marka fiiriso sawir yar oo profile-kayga saaray dadka ka cabaada lacagta Luna ay kaga dhuntay waxaan rabnaa macnaha maar dhaxdaas waxaan baranay coin-ka in la isku badinin article oo sheegaysa waxa jirto portfolio diversification portfolio-gaaga waxa gadanaysa inay kala duwanaadaan hadda shakhsigan sawirka kor soo saaray crypto.com oo account ku lahaa wixiisa oo dhan ayuu wuxuu u bedelay Luna wuuna isteegreeyay right now shakhsigan aan soo saaray sawir laga soo oo ka soo qaaday walletkiisa way $807,000 lumiyay lacagtiisii iyo wixiisa oo dhan Luna isugu geeyay waa xiray wuxuu yiri mac salaama mar dambe fiirnaayo $807,000 waxa ka soo ka luntay $566 ku hartay so sometimes we need to anaga laftirkeena inaan dib u xisaabino so portfolio diversification ma ku dhaqanaa mise awoodeen hal coin isugu geynaa maadaama groupkan maalmahan dambe aad anagaan u taageersan